inay reer Burco soo lugeeyeen garoonka reer Hargeysa ay soo lugeen taaliftigeed Yuusuf micno naciis marsa baabuur laan naga moodi lugta qudheeda xamaasada Burcaas saas oo gaariga kuma sinto ka wata intuu istaaraya ka wasada waa soo dhaqaaqa war koob cidina isaga matalaashto cidina isaga ma hadho koowdi maantuna ugu muran badnaa hadii cid kale qaadayso bahalka maalin maanta ka muran badnaa ma jirin fuaad waxaan leeyahay Burco koobkii qaadna koowdi fuaadna kelmadan bayaa la oran ninkaas waa nin odaya kelmadiisa waxaan u qaadanaynaa sidii uu sheegay inay shidaal koowdi Burco iyo kubaduna isbartay waxa laga yaabaa in waxaan maqlay Burco intaasay ciyaaraha ka maqlay intaasay ciyaaraha waxaasay ka maqlay war anagu waxa si shidana guma hayn ciyaara dushumaanu ka daawanayna markii la soo kiciyana dawanaga waxda maalin waan soo kacayna maalin waan iska deeynaa waxa hadaladaas waxaan soo ka kiciyay Yuusuf waxay taageer reer Hargeysa reer Burco markan wuu diray koobkii aan ka dhargnay muddo dheer aan qaadin arinta ka war inay leeyihiin anagu markan waanu talaasunay war koob cidina isaga matalaashto cidina isaga ma hadho koowdi maantuna ugu muran badnaa hadii cid kale qaadayso bahalka maalin maanta ka muran badnaa ma jirin koowdi marka dadna waa badan jirtiin daana badina inay reer Burco soo lugeeyeen garoonka reer Hargeysa ay soo lugeen taaliftigeed Yuusuf micno naciis marsa baabuur laan naga moodi lugta qudheeda xamaasada Burcaas saas oo gaariga kuma sinto ka wata intuu istaaraya ka wasada waa soo dhaqaaqa xamaasada Burco meel aqooniyo waa nooca aw koobkii hadii aad qaadeen jawigiinu noocu noqon doona magaalada Burco jawiga waa jawiga aad arkayso jawi noo haray ma jiro waxaan anagu hadaan u dhaqaaqno waa saan ugu dhaqaaqo horna